السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام يا أنا خيارتك وحنا يوتيوب channel كيجا وعنيجو فتحين official مرة بعد إذن الله كلنتو وعنا ونكسن أما كلنتي هبون إسكسونا قد دبوا حيسله نشيكوين دبوا حيسه هذا وده يو أرجعنا أنت كوبنين واحد إذن الله هاي رمضان كريم مدة كارت رمضان كان إلهي سخير لها نور ما يفضل يسن إلهي هنسيه inta markii laga imaado waxaan rabaa caawitina ka hadla barnaamij dhinacyo badan taaban doono insha Allah duu ilaahay idmo barnaamijkayga inta aan gudo galin ka hore waxaan rabaa inaan idin bilaabo ama aan idin ka codsado tuugsiga sharciyeysan waxaa ka mid ah fadlan subscribe isaar like haddii aad hore ila joogtay commentiga like-tan ka arki doonaa haddii aad igu cusub tahay subscribe-kaaga aan helo hadday Soomaalinimada kugu weyn tahayna commentiga igu soo qor Soomaaliya ha noolaato dhamaantiin waa idin salaamayaa salaanka bacdi toogsiga bacdi toogsiga waa toogsi sharciyeysan waa looma kala harnaa la dhahaa lama kala xanaaqaana la dhahaa waxaa la dhahaa wax kaama dhibaayo walaalkaana ugu heeli dhamaantiin intaas markii laga imaado subscribe-ka iyo baryadeeda dhamaanteen waa dhamaantood Soomaalida iyo YouTuberada waxay intaas ku gaareen waa intaas toogsiga ah maxay iga dhibay abaay waa ku baraya subscribe isaar adoo ku baraya walaasha miyo subscribe isaar adeer habar yar hadda ay fiirsanaysiin dhamaantiin ciyaal habar oo ahay laga yaabo marmarka qaar inay taleefanada ay helaan oo aan deeg wixii gabar ay dhasho dhan anay habar yar baan u ahay maadaama gabdhaha dhinacooda ay ugu weyn yihiin marka maadaama laga yaabo in ciyaal habar u hayxtaa ka soo horbaxo habar yar subscribe isaar hooyada kala tashanba ka soo xadba inta markii laga soo gudbo waxaa jirta qiso ay xanuujisay oo maanta ku arkay YouTube-ka ay idin soo gudbin doonana sawirkeeda ma ka helin video ma ahayn ama waxyaalo gaaban oo wax laga soo duubay ma aragtay muuqaal ma ahayn laakiin sawir ahaan ayaan ka soo dhigi doonaa maartay inaan soo saaro meesha kore sawirkaas waxa weeyaan sawir aniga taabtay qof kasto hooyaan taaban karaa gabar kasto mustaqbal ama rajo kale inay hooyo noqotona taaban karaa qof kasto qalbi wanaagsan oo ragaba qaar qalbi wanaagsan baa ku jira taaban karaa waxay ahayd wixii igu yaabka badnaa in maanta ku arkay Facebook-ga aniga waxaan ku jiraa dadka Facebook-ga dhinaciisa u badan haddii aad Facebook u badan tahay laga yaabaa inaad aragtay haddii aadan u badnayn anaa kuu sheegayo kuu keeni doono bartaada adoo fadhiye iga warhaya insha Allah laba cunug oo yaryar ah oo aan ku qiyaasay inay waxba kala weyneen markay ugu badato laga yaabo inay calooshiisu baneeyeen ama mataani inay yihiin aniga ma garan kari labadaas cunug waxaad ka arkaysaa sawir murugo leh bedeli karana maskaxda ama qalbiga bini'aadamka qof kastoo calool jilicsanna bedeli kara qalbigiisa waa sababta igu dhalisay inaan aminkaan afurada markaan diyaariyay ka dambe inaan video soo duubo sawirkaasna aan arkay isla maanta galabta 9 saac meelahaas run ahaantii waxyaalaha qaar u baahan in laga hadlo ama u baahan in waqtiga ayada aad ka celisid mataqaanaa fal celin ayay ka mid tahay ama ay ku jirtaa ilmahaas waxaan ku arkay wax bini'aadanimada ka baxsan run ahaantii waa ilmo saqiir ah waa ilmo sabi ah waxba aanan kala ogeyn laakiinse in intaas kurka ah looga xiray xarig baa intaas kurka ah iyo kurka ooga xiran meel yar balbala ah oo u maleeyay inay Soomaaliya ama nool istan tahay hortooda ay fadhiyaan ilmaha dirin oo mataalo dhulkay ka fadhiyaan mari fiican ma wataan wallahi wuxuu ahaa sawir caloosheeda bedelay damiirkayga bedelay ana garanayno waxa uga falceliyo waa ilmihii meel loo raadiyo kolba waa Soomaali waa la soo heli doonaa maadaama waxaan horta u mahad celinayaa qofka sawirkaas soo gudbiyay waxaan jeclahay in laga heli doono muuqaal waxaan jeclahay in la dabageli doono meesha ilmahaas ay ku dhibaataysan yihiin hadduu sharci bini'aadanimo ka jiro ama sharci diiniyan ka jiro in lagula kaco waxa ay diinta qabto ama lagula kaco xuquuqda islaamka waxyaalaha ka mamnuuca ah ay ku jirtaa waxaas oo kale waxyaalaha waxay ku jirtaa la dhaha ilmaha ma aragtay maskaxda hadhow waxbay ka noqonayaan damage baa gaaray cunuga markasta la xiro lugta laga xiro gacanta maxaa la kurka laga xiro hadday hooyadiis tahay xataa ilmaha xiritaanka ma u wanaagsano ilmaha in meel lagu xiro ama lugta laga xiro maskaxda qofka bini'aadanka ah markuu yar yahay kortaa maskaxda markay koritaanka sameynayso haddii ka waran cunug uu ku koro
nolol adag ama lugta laga xiro ama kurka laga xiro horta nolosheeda ma arkan qof kur laga xiraayo Soomaaliya markaan joogo waxaan arki jiray ilmo lugta laga xiro la dhaho way wareeg badan yihiin ama way idhibeen la dhaho lugta laga xiro ayagana ay markaas waalidiinta markaas joogay uga dhigayeen inay saaf gareynayaan ilmahooda inayna dabka ku dhicin intay wax qabsanayaan ilmahan waxaan jeclahay inaynan hooyadood haysanin fadlan ragga Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa haddaad hooyada kala tagtaan in aad ilmaha u daysid gabadha dhashay haddii aad hooyada kala tagtaan fadlan ilmaha u dhaaf hooyada dhashay cid u dhaanta ma jirto hadday doonto ha la dawarsato hadday doonto ha u shaqaysato haddaad wax ku tiri kartidna ku tar laakiin nimanka markii ay dumarka kala tagaan ama ay islaamahooda kala tagaan ay waxay dhahaan ilmahaygiisi anaa inta geynaya kadib war ilmo waxba uma haysin runta idiin sheegaynaa naagta guursatiin baa naagtiina naagta aad guursatiin baa naagtiina ilmihii hore ee gabadhii hore dhashayna wax aad ku ogtihiin male marba taa la joogtiin baa tiina ilmahaana maba loo malay inay korkiina kasoo ga-een ilaahay idinkii inka abuuray ilmaha haddii aadan mas-uuliyadda maba qaadi kartidba ilmaha intay yar yihiin tarbiyad bay u baahan yihiin aqli korin bay u baahan yihiin nadaafad bay u baahan yihiin dhiirigelin bay u baahan yihiin keeran fiican bay u baahan yihiin waxaan intaba kasoo bixi karta hooyada dhashay cid kale oo kasoo bixi karta ma jirto cunug baa habeen barka kugu xanuunsanaya keligaaba usoo kacaya cunug baa maxaa ma aragtaay gaajo qabanaysa hooyo kusoo leeyahay cunug baa u baahanaya in xaarka laga bedelo ama bampaska laga bedelo hooyadii u taagan soo nimanka wixii intaas dhan iina waxba ka ogeyn inaa maalinka gabadha kala tegaysin aan dhahday ilmahaygiisii ilmahaaga noloshay ku nool yihiin ma ogtahay waayo ilmahaaga nolosha ay ku nool yihiin adiga maalinka suuqaad iska aada caawa marka ay maadidna ilmahaaga ma aadan fiirinin qolkaagaad iska gashay casho lagu diyaariyaad cuntay dumarow idinkana ceeb baan ku dhacday ceeb baan ku dhacday magacii dumarnimada ceebaysan oo waana ceebaysan oo meel baan uga dhacday ilmo yar oo dhashay oo hooyada kuwaaga camal la mid ah eed hooyo u tahay eed berri inaad rabtid kuwaasoo kale inaad dhashid maxay noqonayaan ilmaha adiga dhashid haddii aad xumaysid ilmo saqiir oo ilmahaaga oo kale ah maxaad ka faa'iideysaa waxaad ninka ku samayn lahayd maa ninka ku samaysid haddaad masayrsan tahay waxaad ninka ku samayn lahayd inaad ilmo yar ku samaysid maxaa kuusoo kordhaya faa'iido noocee ah kugu jirta garan maayo waxaan leeyahay dumar oo ka waantooba ilmahan waxaa dhashay gabar walaashiina idinkoo kale ah gabadhan markay gabar tahay waxaa fiican inay isu danqadaan ee ogaadaan gabar macnaheeda ma ahan gabaraan la guursanin bas ah magaca dumar oo dhan kor waa gabar hadday ahayn gabarnimay soo wada mareen anigana gabar waxaa ka aaminsanaa qof dumar oo kale markii loogu yeeraa inay saas tahay haddii aadan ilmo dhalin aad guur ku haminaysid ma ogtahay ilmaha dhali doontid inaad u baahan tahay in la dhaqaaleeyo la xanaaneeyo even maanta haddaad dhimatid lagaalama tashanaya ilmaha oo 3 bilood jiro ama caawa lagaa soo qabtaa laga yaabo inuu moodka kugu yimaado yaad maxaad dhigatay maxaad dib dhigatay maxaad meel ooga soo tagtay ilmahaaga ayaa laga jarayaa intii aad ka jartay ilmaha islaameed geedka la beero ayaa mirihiisa la goostaa haddii aad tahay qof naxariis badan haddii aad tahay qof ilmaha kaleeto even hadduu cunuga guriga jidkaaga hor imaado iyo aad aragtid cunug Soomaali oo dayacan inuu yahay inaad intaad istaajisid wareysatid ilmaha ma soo dhumay meel sax ugu socdaa maxuu yahay ayaa waajibkaaga ah laakiin ilmo adiga guriga kula joogo ama ninka ku qabo uu dhalay inaad xagatid dishid xirtid dhuunta xad uga xirtid war cunuga neef ariamiya ariga dhuunta laga xiraa arki jir neef ariamiya ilmahaasayto walaahi aada uga murugooday uga carruur xumaaday ilaah subxaana watacaala waxaan u baryayaa in dadkii sawirkaas kasoo qaaday isla dadkaas ay keenaan fiidiyoyaal isla dadkaas ay soo ogeysiyaan hadday xarun booliis meesha ku taalo dadkaas laga raboodgareeyo sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay ilmahaas garab u helaan noloshooda inta hadda ka dambeysana ay ugu koraan nolol macquul ah oo suurtagal ah ilmahaaga gabray haddaad adiga haysaneyn hooyada ku hayso haddii aadan hooyo lahayn ilmahaaga waqti kasteetaba wax kastaba nolol kastaba saacad kastaba ilmahaaga adiga hayso waxaan kaaga digayaa inaad ilmahaaga uga tagtid nin aa u daadisid waxaan kaaga digayaa inaad ilmahaaga uga tagtid dad kharaabo ah ilmaha hooyada dhashaa fahmi karta noloshooda fahmi karta kaar garayn karta wax kasta u ogaan karta idinkana soo maaha waa gabdhahan yaryarka ee hadda la guursan doono war ilmaha idinkoo aad dhali doontiin iyo kuwan waxba isma dhamaan ma kala macaana waxaa la yidhi wax geedkaas qofka goosan doona lama ogaa la yidhi mataqaanaa waxaa laga yaabaa ilmo aad dhashay maanta inaad korisid adigoona hananin mataqaanaayo oo ilmaha markaas ay soo kareen baa laga yaabaa inuu moodka ku imaado so gacanta waxaa la yidhi la barkan doono ilaahay subxaana watacaala garanaya
waxaan idinka codsanayaa inaad ilmaha u naxariisataan gabdho walaalihiina dhalay haddii ay dhimatay iyo haddii la furayba calaf kuu dhamaadaa waa la isfuraa wax big deal maaha haddii marka hooyadaas ay hooyo dhimatay tahay ama hooyo la furay ay tahay ilmo ay tahay ilmaha aabahood ku adkaystay uu yiri ilmahayga anaa haysanaya laga yaabaa nolosha markay qofka ku adkaato haddii lagu dhaho ilmahayga anaa haysanaya sharuud lagaga dhigo inay dhahdo hayse ee waraaqdeedii siiyo taasoo kaleeta caqabad hortimid waaye waa waxa haysta gabar walaashay ahaa kala socdo tiktoka laga haysta gabar yar oo muqdisho looga haysto loo diiday inay aragta xataa fadlan hooyooyinka ha ka argoosanina kheyr laha idin siiyaa waxaa ogaataa halka habeen ay mataqaanaa caloosheeda galaysay ama halkii habeen ay foolanaysay ama halkii habeen uu kusoo kacay inayna intaas xataa koonka intaas saarantiin xataa ayna gudi karin marka inaad hooyada aad caqabadaysaan aad dhahdeen cunugaaga ma arki kartid aad dhahdeen saan ma sameyn kartid aad dhahdeen kuuguma biilaayo aad dhahdeen si faraqa ugu sho waa wax idinka inka imaaday gabdhaha haddiina dhaqaalaysanaynin calaf hadduu dhamaado ilmihiina ina beelinaynin calaf hadduu dhamaado biil ina haysanin ina dhahayn walaale wuxuu ilaahay ugu siiyo waan ku siinayaa rabba ay u ilmahaaga korso hooyada ilmaheeda nolosha ay ku korisa cidda ee wax uga qaadaba ayadaa korsanayso hooyooyinka kuwa balwada leh kuwa wareega kuwa kasta hooyo ilmaheeda dayacan yihiin ma jirto ilaa ka qof habaaran ma ogi oo hooyanimada macnaheeda aan fahmayn hooyo ilmaheeda dayacaysa oo banaan cidla inta kaga dhaqaaqdo laleeyahay ilmahan waa ilmihii hablaya jidka taagtaagan ilmihii hablaya gaajo u dhintay timaha saasi ka yihiin ma jirto hooyo ilmaheeda ayadaa og waxaana wuxuu ilaahay subxaana watacaala maalinku cunugaas calooshaada galayay ama aad dhalaysay oo adiga uurkaaha ku beeray naxariista hooyadana qof keeni kara ma jirto fadlan haddiina gabdhaha wanaajinayn guurkooda iska dhaafa haddaad gabdhaha xumaynaysaan guurkooda iska dhaafa ilmaha uu ilaahay kaa siiyay haddaad ku caqabadayn doontid ee ilaahay kuga ogyaad ku caqabadaysay adiga bay qaab kaleet ilaahay albaabka kaaga furo tii a guursata ee qaabka kugu noqoto warragga soomaalida saas ku dhaamo oo gabdhaha soomaalida saas ku dhaamo ilmaha ku arkay baydhabo laba ah la gowracay laga jaray gacmaha lagu tuuray meel baadiye ah sabab waxaa sameeyaa la yiri qisadaas waxaa samaysay hooyo xaamilo ah oo uur leh dhashay ilmaha la dhashay dareenka soomaalinimada iyo muslimnimada iyo bini'aadanimada xagooyinka ana waa fahmi lahay soomaali meelay ku socoto ilaahay subxaana watacaala qalbigooda ha soo dumo waa garan la-aan walaa waxaan keligay markaa meel fadhiista aan isweydiiye waxay tahay markaan arko qof soomaaliya wax ku sameynaya maxaa dhacay dunuubta nagala jiraya maxay tahay waxaan intaan cunug aan qaado gaari ugu qaado aan gacmaha iyo lugaha kaga soo jaraya aan usoo gowracaya dameerka intaas la eg xagee ka keenay war ani doora xataa maqali karin wallaahi waa la yaabo dadkaan cunuga maxaa inka dhexeeya aabiis waa kala tagteen nin kalaa ku qaba hooyadiis way dhimato waa rajay qof maanta waxa la tara asagaa ugu fiicnaa noloshii aad u qoosata wax kalaad u qoori weeday waxba kaamuu rabin dhar oo maada dhaqi jirin timo oo maada hagaajin jirin noloshiisa maada kaafin jirin inta yarta adduunka uu cagahaas yarka ugu kormaraya ayaad u qoori weysa walaahi da soomaalida miirka meel ku aada ma garanay waddanka naga allaha noo dejiyo ilaahay subxaana watacaala kuwii nabad mar dambe ku wada noolaada wixii lasoo marayna ka meyrta wixii dhibaato lasoo marayna ku ilooba qadar inay tahay ilaahay hanaga dhigo annaga iyo inta gabdho walaalahay ee muslimiin ah ee aniga ila mid ahna ilaahay musiibooyinka qaarkood ha ka xijaabo shartan ha xareer mariyo hooyo kasteetana ilaahay subxaana watacaala ha xifdiyo awlaadana ilaahay ha u xifdiyo dhammaanteen dambiga waalidkeen ba allaha dhaafo waxaan kula dardaarmaya oo inkaga tegayaa dhammaantiin iyo dhammaantinaba in lagu dadaalo in la ilaaliyo muslimnimada soomaalinimada bini'aadanimada wixii aad markaas arkaysidna laga yaabaa inaad soo martid cunug meel lagu dilaayo waxaan meel saaluun ahaanta tagaa aan ka barto cilaan waxaan arkay dhowr subax cunug wiil ah oo dab shidaaya ilmaha kale sida dugsigu u imaadaan oo ku xaroodaan waxaa i galay damiir ma aragtay darashadaan ka arkay ma laga yaabaa cunugaan inay ayada dhalin ma laga yaabaa isagoo wiila muxuu dabka u shidayaa ma laga yaabaa inay qaraabo yihiin oo iskala joogo anigoo cunuga arrintiisa rabo inaan ogaado ayaan dhowrkan beri ilaa iyo 4 beri 5 beri aanan aadin meeshii
marka Soomaaliya waxa laga rabaa inaad isku danqano hooyo markaa tahayna waxa laga yaabaa inaad fiilka hooyanimada aad leedahay wax kasta aad dareemi kartid subscribe like comment share ka dhacdhacdhac lagu soo siiyo qaybta comment-gana ya war ilaa ka maxaa dhahay gacmihiina maartay iska bedelayaan sida qof cilaan xina loo saaray ka noqonayso waxa laga soo hadlo barnaamijka u maleynaysa inuu ku gudboon yahay ama aan ka hadlo ku haboon fadlan ii soo dhig dhiirigelinta idinka aan ka rabaa anigana kartideedan ku soo fariisanaya kuna soo hadli doona waxa waaye $1 ma ahan $2 ma ahan shilinku weydiisan subscribe-ka bas ii saar insha Allah ta'ala dhamaantiin kulanti dambe xiiso leh video uu ugu dheeraaday hadduu dheeraado la bas waayo waxaan kaga hadlay wax muhiim ah ma aha waxaan jejes kaga hadlay ma aha waxaan music dhigaa inta soo gashtay challenge sameynay waa video ku haboon in aan ka hadlo waqtigiisana aan ka hadlay dhamaantiin waxaan idin leeyahay Soomaaliya alla hadijiyo masiibada Ilaahay ka qabto shisheeyaha Ilaahay naga qabto dawladda Soomaaliya ee dhisan inta ay ka imaanayso dawlad kaleeto oo loo matqaanayo la ogaaday oo la xaliyayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanoo dajiyo taanada aan haysano dawlad la'aan bay dhaantaa federaal wuxuu dhaamaa dawlad federaal markii lagu dhaho wuxuu dhaamaa ku meel gaar Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay shaqaaqada yarta ee Soomaaliya dhexdeeda laga sameeyay ee wadan wadamo shisheeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala bil Ramadaan baa lagu jiraa wadankanaga u duceeyno inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga qabto wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaalinimada ha noolaato madaxiina kor lugihiina hoos markastaba xagga la jiraan bye bye